kulan wada jiro ay warbaahinta kula hadleen waayeelka waxgaradka odayaasha qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Ceelafweyn dadweynaha iyo masuuliyiinta deegaanka Bixin ee Ceelafweyn waxay sheegeen inay kooxo xoogan oo burcad ah ay ka dilaaceen deegaankaasi kuwaas oo gumaad iyo dabargoyn baan ku haya dhirta iyo khayraadka deegaankaasi waxayna soo bandhigeen dhirtaasi raqdeedii oo duubka laga siibay waxayna wasaaradda horumarinta iyo deegaanka gobolka Sanaag iyo tan degmada Ceelafweynba ay ku canaanteen wax ka qabasho la'aanta hawlahan oo dadka falkaasi ku kacay ay caadeysteen iyagoona sheegay in isla wasaaradda deegaanka masuuliyiinta Ceergaabo iyo Ceelafweynba u fadhiyay heshiis qarsoodiyaha kula jiraan inay kooxahaasi falalka noocan ay ka fuliyaan deegaankani waa sida ay afkooda kaga tiraabeen waxayna baaq u direen xukuumadda dhexe inay si degdeg ah arrimahaasi wax uga qabato meesha saraca laga gaaro maxorka halka waxa taal dhibaatada taallay halkan aan ku haynaa waxa weeye dhir tan oo arkaysaan oo sida loo garaacay oo wixii ku yiilay aan hore u dhici jirin yalla ma aragay waxaan islaahay dadka markii aanu daba galnay ilaa iyo Puntland baa daba sheekada daba ku haysa waxa la qabadsiinaya garowga intii u sokaysan dadkaas waxa kiimada la garowga dad deegaanka kamid ah Arigaabo waa la soo adeegsaday ilaa gawaari ilaa dad maamul lacag haysta ilaa dad baa mushtara ilaa dad shacabada ka dambeeyo waxaanu canaan soo jeedinayna wasaaradda dhirta deegaanka ee gobolka Sanaag degmada Ceelafweyn maamulka joogay iyo gobolka waxaanay badan ugu qaylin haday dhuxul joojin tahay haday dhirgaraac tahay haday waxa la ururinayo tahay haday qashimaysi tahay oo aan loo qabno inay qayb ka yihiin oo iyagu lacag ku qaataan wax talaaba ay ka qaadeen ma jiro waxaanu kala amaan u soo jeedinaynaa dugsiga bixinka furan ciidanka qaranka ee taliyaha Axmed Cali Dhuux oo ka yahay hadeer taliyaha oo naga joojiyay dhuxushii socotay ee tahriibta lahayd ee xasuuqa lahayd waxaan cadaynaynaa in ay halka ka socoto dad dhirta xasuuqay oo dhulka nabaad guurinay oo aanu aabayeeleen oo bilaa naxariis u nabaad guurinay dhacdadii dhacday iyo wixii ay sameeyeen waa aragtaan oo anaga waa dad caynkaasa waa dad isa soo hadii la yiraahdo bahaystay waa dad aan deegaankan ahayn waa dad dadkii u dhashay ahayn waa dad nabaad guur inay soo nabaad guuriyaan dhulka u soo tashaday waa dad hantiilayaal ku jiraan oo la kharash gelinayo la maal gelinayo wasaaradda Baaqa gobolka Sanaag dad baa ka jooga degmada Ceelafweyn dad baa ka jooga waa dad meesha ku reegay iyaga iyo kontrabaalaha isla qabsaday lambaradooda la hayaa waa la wada hadlaa waa la xiriira baa ka dhaxaya dadka wasaaradda Baaqa qaranka ku jooga iyo kuwa dhulka xasuuqaya xiriir baa ka dhaxaya waa la wada hadlaa waa la wada shaqeeyaa dadka laba qabto maalmo ninku meeshiisu wax ka yahay dee waxna ku yahay halkii aan waxna ku ahayn waxna ka ahayn waxaanu guntigaanu jiska dhigno waanu doonay dee waxaanu leenahay waxaanu soo bandhignay cadayntii waanu keenay dawladda u taala sida ay wax ka qaban lahayd talaabada ay uga qaadi lahayd anagu la shaqeynayno ahaan dagaalkii horbaxay anagu baalihii baanu nahay dawladdu ku duuleysay ayaanu u nahay guddi ahaan iyo waayeel ahaan anagu waxaan nahay baalihii ciidanka iyo amar bixinta iyo ka qayb qaadashada hawshana dawladda aanu ku taageersanahay waxna kala qabanayna Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid Bulshada TV Ceelafweyn